Dowladda Turkiga ayaa waxa ay juhdiyaad badan ku bixisay sidii ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u siin lahayd ciidan milatari oo tababaran, iyadoo hub iyo gaadiid gaashaanba ugu deeqday tababarna u fidisay ciidamada Soomaaliya, kana furatay goob milatari magaalada Muqdisho. Saldhigga milatari ayaa ah ka ugu weyn ee Bariga Afrika ku leeyahay dalka Turkiga. Hubka lagu soo daabulayo magaalada Xamar ayaa waxa uu walwal aad u badan ka muujiyay xubnaha mucaaradka ah. Ciidamada aad u tiro badan ayaa marba marka ka dambeysa loo soo tababaraya. Waxa aad uga sii walwalsan dowladaha jaarka Kenya ha ugu horreysay in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo sameeyay ciidan quwad. Taas ayaa lagu macneyn karaa in ay soo laaban karto awooddii Soomaaliya ku lahayd Geeska Afrika iyo weliba qaasatan Qaaradda Madow. Taas ayaa waxaa macnaheedu tahay in haddii ay dowladda Turkigu sii joogto Soomaaliya, awood badan yeelan doonto dowladda Soomaaliya. Haddaba waa maxay sababta ka dambeysa in dowladda Turkigu caawimaad siiso dowladda Federaalka Soomaaliya? Tan iyo markii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo yimid, dowladda Turkiga ayaa xiriir la sameysay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2011, markaas oo abaaro aad u badani ka taagnaayeen dhulka Soomaalida, waxaana safar ku yimid